milatariga waqooyi bari ee difaacyada kaga jira gobolada Sool, Sanaag iyo Togdheer oo masaafo ahaan kala fog 600 kiiloomitir ayaa heegankii ugu sarreeyay la geliyay kadib safar taariikhi ah oo markii labaad madaxweyne Soomaaliyeed soo caga dhiganayo magaalada caasimadda ah ee Laascaanood oo ah buucad ka tirsan gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dunida iyo dalalka geeska Afrikaba tusaya in aysan marnaba gobolada waqooyi gaar ahaan labada magaalo ee Hargeysa iyo Burco ka xubsiiban karin Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya. maamulka waqooyi bari oo gobolada waqooyi boqolkiiba 50 maamulo ayaa markan adkaysanaya inuu yahay bridge-ka midnimada Soomaaliya laga go'aamiyo taasoo meesha ka saaraysa riyo maalmeedka iyo aqoonsi beenaadka maamulka Hargeysa. milatariga waqooyi bari waxay tirtireen meeshana ka saareen awood kasta oo ciidan oo ka jirta gobolada waqooyi. maamulka Hargeysa oo mar isbidi jiray awood ciidan waa la xubsiibay, cagta la mariyay, taariikh dhigaalkeeda la diiwaan geliyana laga hardhay.